بسم الله الرحمن الرحيم magacay waa Farxaan Xasan ka soo jeeda beesha Daarood gaar ahaan beesha Dhulbaante gaar ahaan beesha Axmed Garaad waxaan ku xidhanahay jeelka weyn ee Hargeysa halkaas oo muddo 9 sanadood aan ku xidhanahay muddada 9 sanadood waxaan u xidhanahay mag 9 sanadood beeshayda waan la hadlayay Axmed Garaad magtaana inay iga bixiyaan waan ka waayay oo iga bixin waayeen sidaa darteed markaan 9 sano oo kamid ah cumrigeyga aan ku dhameystay jeelka waxaan go'aansaday inaan fariintayda gaarsiiyo dhammaan beelweynta Daarood meel kasta ay joogaan dal iyo dibadba madaxdooda iyo maxaan ku raahdaa mudanayaashoodaba sidaa darteed waxaan ka codsanayaa beesha Daarood cid kasta oo hadalkayga gaaro oo kamid ah inay ii soo gurmadaan magtaana iga bixiyaan waxaan ahay aabe 4 caruur leh qayb kamid ah caruurtooda waxay dhasheen intaan jeelka ku jiray mana aan nasiibna maanan helin inaanu is aragno oo midowno nasiib maanan helin sidaa darteed mudane iyo marwaba beesha beelweynta Daarood waxaan ka codsanayaa inay magta iga soo bixiyaan si gaarana waxa weeye waxaan leeyahay mudane iyo marwaba waxaan la hadlayaa magaca Daarood muddo badan in xiran baan oo mooralkii jabay ma facmalaha aakhiro dad iyo magaca reereed maanta aan inii baahanay mudanayaalow madoobiyo kale dani ku tahay waa macjuurahay مصطفى فرماجان أدري مصنع وهذا له aad baan idin salaamayaa maadaama aan si public ah ka soo codsaday idinkoo beelweyntii Daarooda wax aad u yar oo magac waxaan idin ka rajaynayaa inaad meesha igu caabayn publicaas leega dhageystay magtaana aad si degdeg iga soo bixisaan oo billahi tawfiiq nambarka wax lagu soo hagaajinayaa waxa weeyaan inaan qaraabanahay Leeyahay Cabdirashiid xaaji Samatar Culujoog nambarkiisuna yahay 2522 6 9 hal 41 waa 2522 6 3 6 9 41 waa 2522 6 3 6 9 41 waa billahi tawfiiq. Assalaamu calaykum.